الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستزيد من فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير والد وخير مولود صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: ثم أي؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. إخواني، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. الله سبحانه وتعالى إنسان كان bani aadamka isagaa abuuray jala jalaaluh. abuuritaanka uu abuuray siduu noo sheegay jala jalaaluhu, hal naf buu ka bilaabay, abana aadam calayhi الsalaam. ka bacdina ilaahay subxaanahu watacaala zawjadiisii umuna xawaa ilaahay aadam buu ka dhex abuuray oo meel banaanka kama keenine aadam dhexdiisa feerfeerihiisa ka mid a ayun baa ilaahay wuxuu doono wax ka sameeyahay. qaadirun calaa kulli shay weeye. feerfeerihiisa ka mid a ayun buu zawjadiisa haddana uga sameeyey. inay saas tahayna ilahay baaba noo sheego: yaa ayuha الnaasu اtaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha min hadihi الnafs zawjaha baa ilahay ka wabaha minhuma rijaala kaiira wanisaa. dabadeedna rag fara badan iyo dumar fara badan halkaa ay ka dhasheen. ilaahay subxaana watacaala aadam intuu soo dejiyey intii ka dambeysay, ilaahay nasliga bani aadamka wuxuu ka dhigay maa beyna abaweyn, hooyey aabo ayaa ilaahay nasligooda ka dhigay. sababta takaahurka iyo badnaashaha iyo nasliga ilahay halkaasuu geliyey subxaanah, qaadirun calaa kulli shay. hadda barnaamijka ama mawduuca layidhaah laga hadlo waa mawduuc weyn, waa mawduuc bir lwaalideyn, waa mawduuc muxaadaro iyo muxaadarateyn iyo kutub ayna ku filayn. mawduuc aada u weyn wey. waa mawduuc ilaahay jala jalaaluhu wacaduma sulطaanuhu uu ku labeeyey
laba uga dhigay cibaadadiisa xaqa ugu weyn ee ilaahay subxaanahu ilaah baa iska leh xaqa ugu weyn ee lagu leeyahay ibni aadam allah ku leh xaqa ku xiga ilahay wuxuu ka dhigay bir lwaalideyn qur-aanka haddaad u fiirsato ilaahay subxaanahu watacaala wasiyada iyo dardaaranka wuxuu ku bilaabaa tawxiidkiisa iyo cibaadadii lan xaqa ugu weyn waa kaas xaqa ugu weyn ee lagu leeyahay ibni aadam waa inuu rabbigii garto oo caabudo oo suu doon u caabudo mahay suu rabbigii amray u caabudo wa qaala allahu laa tatakiduu ilahayn ithnayn ilahay laba ilah ma ogola saddex ilahna ma ogola ilahay hal ilah in la caabudu rabaa huwa allah laa shariika lahu waid akhadnaa mihaaqa bani israa'iila laa tacbuduun ila allah waa tawxiidka wabilwaalidayni ixsaana suurat lancaam qul tacaalow atluu maa xarama rabukum calaykum waa aayaadkii ibni mascuud radi allahu canhu uu yihi ninkii doonaya dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo shaabadaysan calayhi khatmuhu ninkii doonaya inuu akriyo inuu arkow aayadaha aqri dardaarankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dardaarmay ninkii doonayo qul kaalaya tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum wuxuu rabbigiin idinka xarimay uusan idiin ogolayn oo haddaad ku dhacdaan aad ku halaagsamaysaan iyo waxaad inaad samaysaan ay waajib idinku tahay anlaa tushrikuu bihi shay-an kow kaasa ah inaydaan isaga u shariig yeelin oo keyrkiisa aydaan caabudin wa bilwaalidayni ixsaana wa amarakum wuxuu idin amray bilwaalidayni labada waalidna ixsaana inaad u ixsaan fashaan ila aakhiri alaayaat wahaakada waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah isagu inaad caabudaan wabilwaalidayni ixsaana wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana wawasayna alinsana biwaalidayhi ilaa uu yihi an ishkur lii haddaan rab lcaalamiin ahay aniga ii mahadnaq waliwaalidayka labadaada waalidna waa mahadnaq asaasku walaalayaal waxay ka socotaa aslu fi lmas'ala waxaa weeye insaanka ilahi subxana watacaala yani damiir buu u yeelay qalbi buu leeyahay caatif buu leeyahay dareen buu leeyahay waxaa ilaahay ku abuuray oo fitradiisa ka mid a in uu jeclaado qofka u ixsaan fala qofka u ixsaan fala inuu jeclaado ixsaankaa marka anwaaca qof baa ixsaan kuu sameynaya oo kuu dadaalaya rajo uu kaa qabo inaad u abaalguddo qofkaasoo kale u abaalguddo waa fiican yahay laakiin ka waran ixsaan bilaa muqaabil ah ixsaan oo bilaa muqaabil ah waa maxay waa ixsaanka ilaahay horta jala jalaaluhu ila ilaahay ixsaanka khalqigan oo dhan ilahay baa u ixsaan falay xaq kumayna lahayn waajib kuma hayn inuu abuuro adduunkan inuu keeno kumayna lahayn adduunka u sameeyey dhulka u dhisay buuruhu u sameeyey biyo u sameeyey kulli shay isagaa u bilaabay horay uma jirin wax biyo la yidhaha ma jirin wax beed la yidhaha ma jirin wax geed la yidhaha ma jirin wax himaar la cunaa ma jirin dhul iyo cir iyo koon buu u sameeyey iyagii buu abuuray asyaad buu ka dhigay asyaad buu ka dhigay iyagaa asyaad ah makhluuqaad fara badan oo la nool baa jiro isagu ka sarraysiiyey oo insaankaa xukuma lo-da dadkaa iskale geela dadkaa iskale ariga dadkaa iskale yani ugaadha kulli shay dadkaa iskale baddii oyna ku nooleen xataa iyagaa iskale bal adigii badda maxaa iska kiin galay badda meelaad ku noolaan karta ma haddaad ku dhacdo waa ku dhex dhimanaysa kan badda ku nool haddii banaanka loo soo saaro kuma noolaan karo waa laba kale caalam haddana ilaahay adigu milki kaaga dhigo sakhara lakum albaxra badii baa ilahay idin taskiiriyey oo ilaahay baa hilib idinka dhigay oo meeshii wixii ku jira idinkaa iskale ilahay jala jalaaluhu insaanka sayid buu ka dhigay makhluuqaad isaga lamid oo xagga nafta ay iska mid yihiin oo nafta haddii la yidhaaho isku mid ay yihiin oo siday u baahan yihiin u baahan oo cunto hadday yihiin u baahan oo cabid kulli shay ayaa ilaahay haddana milki gacantaada soo geliyey haddaad insaan u tahay oo ilaahay uu kugu manaystay oo cuntaada cunta kaaga dhigay awalam yarow miyaysan arkayn annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydina ancaama fahum laha maalikuun wadallalnaaha lahum faminha rakuubuhum waminha yaakuluun walahum fiiha manaaficu wamashaarib afalaa yashkuruun dadku mahadnaq ma hayaan rabbigood uma mahadnaqayaan waa iska iloobeen maalin kasta hilib baad cuntaa weligaa ma maqashay dowlad baa hal neefo geela samaysay ama hal neefo arya samaysay ama hal digaagada samaysay ama hal ukun samaysay ma maqashay technology kasta iyo horumar kasta ha gaadho caanaad maalin kasta cabtaad dhiig iyo uus dhexdooda ilahay kaaga soo saaray dhiig iyo uus dhexdooda
baa ilaahay caano macaan oo udgoon oo aan dhiiggii iyo uuskii midna shaqo ku lahayn ilaahay kaa ku siiyey jala jalaaluhu. marka imise kun oo litir baa waddankan laga cabaa oo cano ah, mise milyan bay gaareen ya. yurub oo dhan haddii la isku darana, maraykanka haddii la raacsiyana, australia iyo new zealand kulli haddii la isku daro, wadamadaas oo dhan haddii la isku wada geeyo, imise milyan oo litir baa maalin kasta ilaahay oo caanaha dadka ilaahay siiya. meel la koobi karaa? so aada uma badna. waa mahadsantahay yaa ku yidhi? ma maqasheen waa mahadsantahay waxa ilahay ku yidhi? waa yaryahay ilaa qaliil, ilaa qaliil. haddana haddii wax kasta, awood kasta iyo maamul kasta iyo muruq kasta ay leeyihin isu geeyaan, oo dhiiggii uuskii cani dhiig waa taqaanaan, uusna waa taqaanaan, isu geeyo cana ka soo saara, kama soo saari karaan, ma samayn karaan. inay caano cabaan ilahay bay u baahan yihiin. caanihi waa cabayaan, ilahay kuma mahadnaqayaan. hilibkii waa cunayaan oo xoolihiiba ilaahay u sakhiray, ilahay kuma mahadnaqayaan. maleegi ay shaqo ku lahayn oo isku wadan ba in ahayn bay iskala soo baxayaan oo raashin u ah, ومع dalika ilahay kuma mahadnaqayaan. marka dadku ilahay kuma mahadnaqaan. lidalika ilahay wuxuu waqaliilu min cibaadihi shakuur. ixsaanka ugu weyn ilahay baa iskale. lidalika in ilahay la jeclaado waayo, jacaylka ugu badan ilahay yaalo. xaqa ugu weyneed ilaalisana kan rabbiga ha noqdo, lanna ixsaankiisoo kale maba jiraba. adoon jirin buu ku haysiiyey, hadduu doono kuma abuureenba. wax oo aad ku yeelan lahayd ama meel aad u raacan lahayd ninta ma jiro. wuu ku abuuray, wuu ku keenay min maalintii adduunka uu ku keenay ilaa aad ka dhimanayso. ixsaankiisaad ilbiriqsi kasta ku jirtaa, ilbiriqsi kaste ixsaankiisaad ku jirtaa, oo majaanan ah, oo wax muqaabilahoo lagaa doonaya aan jirin. labadaada indhood dhulka muggiisoo lacaga ma siisan kartid. haddii hal ilnasi oo dhulka muggiisoo xoolo qaado oo lacag ah ma yeelaysid. yani nicmada ilahay kusii lama koobi karo. awal alxuquuq horta xaqa ilaahay ba ah. xaqa ku xiga waa xaqa waalidiinta. leesh? lanna labada waalid ixsaankoodu waa mutaqadim, ixsaankoodu waa bilaa sabab. aniga hebel ma iloobi karo lanna waa ii dadaalay, waxbuu isiiyey, yani lahu sabab. ilaa ixsaanka labada waalid maahan sabab male. waa fitra ilaahay ku abuuray wey. ilahay baa qalbigooda geliyay ilmahan ay dhaleen inay u ixsaan falaan. sidaas awgeed baa dardaaranka ilahay qur-aanka haddaad aqrido meel qura ka heli maysid ilaa qaliil, dhif iyo naadir oo lala hadlay labada waalid oo laleeyahay ilmihiin u ixsaan falaa. lanna way ku abuuran tahay, bay qalbigooda ku abuuran tahay. uma baahna dardaaran, uma baahna dardaaran loo dardaarmo oo la yidhaha war labadiina waalida oo ilmahan aada dhasheen u dadaala, heli maysid qur-aanka. markay labada waalid isqabtaan baa xuquuqda ilmaha laga hadlaa. wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn, sida loo nuujinay iyo xaqa ay kala leeyihiin iyo nafaqada. mar qura oo weliba dhibaata ay keentay iyo firaaq ay keenay. laakiin laba waalid ilmahooda yani u dadaala lama yiraa, qur-aankuna ma yiraa. fadaaila kuma iman fara badan. sababtoo ah dee waa fitro ku abuuran. waalid kaste, hooyo kaste, aabba kaste inuu u sacyiyo oo u dadaalo ilmahan maslaxadooda, uu jeclaaday inay weliba ka fiicnaadaan. waxaa la yidhi waxaa jecel keliya qof kale in qofka insaanku waa anaani, ma jecla inuu nina ka wanaagsanaado. tena meesha fadhida mid walba wuxuu jeclaya dadka un isagu ugu fiican yahay. nin ka fiican ma ogola ilaa mid keliya. aabbaha ama hooyada way jecel yihiin wiilkooda ama gabadhooda inay ka fiicnaadaan, ma cindahum mushkila, ma rabaan wax dhibaato ama wax dhibaataa dhintaa. leesh? lanna waa fitra ku abuuran wey, qalbigooday ku jirtaa. ilaahay baa ku abuuray, ilahay baa subxaana watacaala jeclaysiiyey. xubi iyo mawadda ayaa ilaahay qalbigooda ku abuuray. waa meeshuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uuna leeyahay ilaahay 100 raxmuu leeyahayo 99 raxmadood agtiisay taallaa. yowma alqiyaama dib u dhigay hal raxmo, hal naxariis baa ilahay dhulka kusoo dejiyo. waa naxariista laysugu naxariisanayo. ilaa xataa neefka yani hasha ilmaha markay dhasho oo ilmaheedii yaroo hadda dhashay markay ka tallaabsanayso ay lugteeda kor u qaado iyadoon uba dhoweynba, khashyata inay ku istaagto. waa naxariis ay u qabto wey. waa naxariis ilaahay ku abuuray. waa fitra jamiic almakhluuqaat lagu abuuray wey. inay ilmahan ay wax yani shimbiraha iyo bisadaha iyo kulli wax kasta ilmahooda aad ay u jecel yihiin. yani waa shay ku abuuran wey. insaanka oo caqli ilaahay siiyeyna kaba simin. laakiin waxaa dardaaranka ugu badan uu ka yimid fi lqur'aan waladku inuu labadiisa waalid u ixsaan falo, inuusan iloobin.
inuusan ixsaanka ay u galeen iloobin, wujuudkiisa inay sabab u ahaayeen waa kow, oo jiritaankiisa ilahay ba abuuray lakin ayagaa sabab u ahaa waa kow. midda labaad ixsaan bilaa muqaabila, bilaa muqaabila. hadda daa'iman ilahay markuu ka sheekeynaya ixsaankoodana wuxuu ku bilaabaa kan hooyo, wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana. maxaa yeelay xamalathu umuhu kurhan calaa kurhin, xamalathu umuhu kurhan wawadacathu kurha, xamalathu umuhu wahnan calaa wahnin wafisaaluhu fi caamayn. dhibka badan hooyadu ku yimaada. lidalika xaqa marka nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, yaa igu xaq weyn makhluuqaadka dadka, wuxuu yihi umuk. mar labaad bu weydiye wuxuu yihi haddana hooyada. mar saddexaad bu weydiye haddana umuk. markii afraad buu yihi abuuk. lianna xaqa hooyada ilahay lama kooy. waxaa leeyihi nin baa hooyadii oo da-ho gabowday oo lafalafa noqotay, aada u dhammaatay, ayuu tuun ku xambaarsanyah. markaasuu la dawaafaya, uu la dawaafaya, kacbadu dawaafinaya. waa arrin aada iyo aada u fiican oo mulfit ah. dadkii oo aada u fiirinaya o arrintaa u jeclaystay buu arkay. markaasuu nin sheekha weydiiye u yihi ka waran hooyaday xaqeedii hadda sidaa maku gutay? markaasuu yihi maya. maxaa dhacay? soo aniga xambaarsan. wuxuu yihi iyadu markay ku xambaarsanayd adoo yar waxay jeclayd noloshaada inaad noolaato. adna hadda waxaad leedahay ilaahu iga astur si dhaqso ah. ma sinmi kartaan marka? hadda adigu waad xambaarsanta waxaad leedahay ilaahay igu asturo, iga asturo, si deg dega iga hoyi baad leedahay, soo maaha? markaasuu yihi ha wallahi waa runta. haddii ma sinaan kartaan. iyadoo waxay ku xambaarsanayd iyadoo jecel inaad noolaato oo noloshaada jecel, noloshaada wax kasta ka jecel. laakiin adigu waxaad xambaarsan tahay adigoo jecel inay kaa hooyato ilahay u ka asto. marka ma sinaan kartaa. fitradaasaa ilahay marka quluubta waalideynta ilahay ku abuuray. kow marka walaalayaal, alaslu wax kaste mu'minku muslimku muslimaddu shay kasta oo noloshooda ka mid ah waa inay cibaado noqotaa. horta xaqa waalidiinta ee dhowrayso cibaadaha kaa noqdo. tacabad illaaha, ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowow oo ku cabud bibiri lwaalideyn. baabka ugu weyn eed ilaahay ridahiisa ku helaysana wey. haddaad maqasho rida allahi min rida lwaalideynna waa dhab. labadaa waalid hadday raalli kaa noqdaan, hadda ogow raalli bay kaa noqdeen. dadku isku mid ma aha. dad baa raalli bay kaa noqdeen u haysta in aabbaha ama hooyada hadiyo goray kuu duceeyaan, ilaah kan ku sii, ilaah kan ku sii. aabbayaashii hooyayaasha qaarkoodna waa iska adag yihiino waxay waa jecel yihiin oo waxaan ku faraxsan yihiin, laakiin duco badan iyo af wanaagsan iyo fara badan ma hayaan. macnaheedu taa maaha. arrinta waa qalbiga, waa qalbiga. had iyo goor waxaad u degdegtaa waxa ay aabbaha iyo hooyada jecel yihiin intaysan iyagu kuba weydiisan, intaysan iyagu su-aaliba ka iman, adigu u degdeg waxay jecel yihiin. waxay jecel yihiin baad ogtahay soo ma aha. ku dadaal. weligaa kelimad ha ku soo celin. khaasatan waxaa lala hadlayaa ninku markuu weynaado ama qofka muslimadda ah naagtu weynaato oo laba waalid ama midkood ay soo gaadhaan, meesha dardaaranka gaarka ah ilaahay uu ka bixiya halkaa waay. imaa yablugana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa. arrintiiba cagsi isu rogtay. cagsi maxay isu rogtay? adoo taag daran oo miskiina oo daciifa oo intaa la egoo barjaqo biyo ah oon waxba iska celin karin, oo halkaa haddii lagaaga tago quraanjaha iyo barabarada iyo sankii iyo afkii kaa wada gelayaan baad yaad ahayd. adoo saasa xaalkaaga waxaad iska celin kartaa jirin. ilaahay hooyada iyo aabbaha ayuu kuu sahlayo markaasay ku barbaariyeeno ku ixsaan faleeno. cagsi markay arrintu hadda isu bedesho, iyagii ay daciifaan, adigii aada qawi tahay, adigiiba hadda xooggan oo nin xoog la noqday, soo ma garan, oo naag xoog la noqday. iyagii waa masaakiin, waa ducafaa. hadday marka kaalmadaadii ay u baahan yihiin. markaas weeye marka sida gaarka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u daardaarmay uu yihi falaa taqul lahumaa uf. waa kalimatu dajrin, dajar yani cagku oo kale, waxaan dhib badana. yani xataa kelimad kaasi ah yayna afkaa ka maqlin, wejigaagu yuuna isu bedelin. waxaana xaaladaas sida gaarka ah loo tilmaamay baa la yidhi leanna labada waalid markii ay weynaadaan oo da ay noqdaan oo dacfi iyo taagdarro ay ku timaado, waxaa laga yaabaa in badan in ma garanaysaa ay bilaa sabab iska kaa dagaalaan.
oo adoo wanaag ku jira haddana aynan yani ku caanantaan ama dhibaato kugu sameeyan ama aduu weligaa iyo allaha kelimad xun yana kaa soo bixin, qalbigana ha ka kahanin. daa'iman adigu waxaad ku dadaashaa had iyo goor kelimad walba kelimada ka macaan ee ka wanaagsan ku dadaal. weligaa iyo allaha, hooyada iyo aabaha hala doodin. baaraka allahu fiikum. doodo iyo jidaalku waa dagaal aan gacmo la isla aadan wey. nin markaad wada doodaysaan waa isdagaasheen, waa midkiin inuu adkaado la legda wey. marka aabaha hooyada ma la dagaalamaysa, ma legdaysa, ma la legdamaysa. haddaad la doodo waa saas. dad baa waxay ka rabaan inay kaa dhaadhiciyaan aabaha hooyada in lala doodo maantoo dhan la may sidan wey, ma ahe sidan wey. dooda aada la doode waa cuquuq. indhaha aad ku taagayso iyo kalimooyinkaas mutaxan ee doonaysa inaad kaga adkaato, waa caaq baad ku tahay, arrintaas aad ku gabsan tahay. hadda iyo goor aabaha iyo hooyada haddaad isqabsataan adaa gardaran, adigaa gardaran, iyagaa saxa ah. indhaha hoos kor ha u fiirin, hoos intaad u rundudsato xaadir dhe, nacam waayahay waan ogolahay, walow garbayaysay ahana. waxaan qasooyinku waa fara badan yihiin xusuustay oo qiso inaan sheego ay lagama maarmaan tahay fi hada albaab. nin sheekh oo mashaa'ikhda reer madiine ah oo haddaba nool, oo la yidhi waa nin caalim ah, madiina kutubta ka aqriya, oo aan filayna nin ahlu khayra inuu yahay. waxaa lagu leeyahay ilaa yowmina hada mindha kontonkii waa u dhaafay, weli ma uusan guursanin. wuxuu u guursan waayey sidii dadkii waraystay, wuxuu ka baqayaa qofka uu guursado inay hooyada isku dhacaan. isaguna meelaan hooyadii agteeda ahayn ma seexdo, yani ma doonayo meesha hooyadiis buu ukhidmeeyaayo qolkeeda qol aan ahayn inuu seexdo ma rabo. hadduu guursado marka xaq baa lagu yeelan, waa inuu islaantii qol kale la tagaa, waa in arrimahaas marka ma yeelin baa layidhi. horta taas anigu kamaana maqan, lakin qisada aan maqlaan idii sheegay cajaaib tale. qisada waxaa ii sheegay nin soomaali ah oo isagu yani dee sacuudiga oad garanaysaan kafiil ka yahay. kafiil ma taqaanaa? waa wax ilahay idinka xoreeyay idinka. waxawaaye nin ba adiga mas-uul kaa waay. inuu nin mas-uul kaa noqdo ayaad ku joogaysaa. marka ninka kan nin sheekha oo soomaaliya iiga sheekeyna, wuxuu yihi sheekhan waxaan isku aragnay meel jidda ah, isagu reer madiina wey. wuxuu yihi bu yihi sheekho waxaan rabaa yani nin darawala oo aad baan mashquul ahay, hooyaday iyo walaalaha iyo gaariga ku kaxeeyo, haddana ahla diina oo weliba usro leh baan doonaya. sheekhana waan aqaanaa buu yihi. markuu saas yihi bu yihi anaaba diyaaraba waaya. marka anu magaalo kalean joogaa buu yihi oo aada uga fogo januubka meel koonfurta khamiis bishayn meel bu yihi imow madiina isugu keen. almuhim tigirkii iyo wii iyo lacagtii iyo wixii buu isiiyey bu halkaa inaan isugu tagno. marka waxaan u imid buu yidhi inaan markaa kafaalada sheekha ku wareego oo dabadeedna khidmadiisii galo madiine iyo xaramka iyo khayrka inaan ka faaidaysto. waan imid xaramkii baan sheekhi baan la kulmay. sheekhiisuu isii waday meel hotel u idejiyey buu yihi, lacag buu iga bixiyey. wuxuu yihi intaan kaaga jawaabayo ama haroos hawsha ka bilaaban halkaa ku jir. 4 bilood ilama hadlin buu yihi. maalin kasta sheekha waa is arkanaa, waa arkaa, waa salaama, waa iska tagaa, waa iska ilama hadlin. 4 bilood oo hotelkii lacagta bixinayo kadib ayaa wuxuu yihi aan sheekha is aragnay. sheekh dee xaalku muxuu yahay? horta waraaqihii wixii ii sameeyey buu yihi, kafaaladii iyo wixii magaciisii waxa dhan waraaqihii waa ii dhamaystiray, shaqadii inaan bilaaban sugaya. waa i yimid wuxuu yihi buu yihi dhageyso, aniga hooyaday weligay intaan jiray hooyaday kelimada ay tiri kuma celin. saas wey hadday tiraa nacam khalad ha ahaato sax ha ahaato, weligay kelimad dib uguma celin. marka wuxuu yihi arrinta markii aan kaala hadlayay hore, nin baa jira darawal u ah hooyaday oo reer wadankeena asalkiisu Mauritania yahay, reer wadankeena ah. ninkii marka xoogay markii dhaliisha ay timid oo inaan isagii aan iska sii daynay ay noqotay, intii aan hawsha ku maqnaa adiga xaggaaga, ninkiiba hooyaday ku cabtay oo yihi ma garanaysa hooyo sidan waayo. markii aan soo noqday hawshaadiina ay dhammaanaysaba meel fiican ay noo marayso, ay hooyaday waxay tiri waxaan doonaynaa ninkii hore inuu noo joogo ee iska daash. ma oga buu yihi hooyaday inaan nin la soo ballamay oo lacag ka soo bixiyey oo kharaj galay oo adiga kula soo ballamay oo ma oga buu yihi. anigana caadadayda maaha buu yihi kelimad ay tiri inaan aan u jawaababa
yani inaa la hooyo meeshii nin baan u yeeranay oo xaaladdu halkaasay maraysaa igama suurtooda bu waxay tiraa un baa soconaya. marka saas awgeed iga raalli ahow aniga meeshaas ma geli karo, maadaama hooyaday tiri ninkii horaan rabnaa khalaas hadalkeedaa soconaya. adigu marka lacagtana qaado, madiinana meeshaada iska joog, sidii kalean kuula dadaalaya o khayr, laakiin booskaas ma geli kara bu yiri. ma ka suurtoobi lahayd nin waktigeenoo kale zamankan jooga weliba oo zamanu tafatux iyo zamanka furfurnaashaha iyo dimuqraadiga iyo hadalka iyo wada dooda iyo alaabtan ay wada socdaan, ma kaa suurtoobi lahayd? say ku dhici kartaa nin baan la hadalay, nin baan keenay, oo xataa si wanaagsan xataa uga dhaadhicin karaa, ma doonaayo, waxay tiraan baa soconay. marka walaalayaal, xuquuqda waalideyntu waa arrin aada iyo aada u weyn. ninkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala siiyo xadigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo, aabihii ama hooyadii oo da-a oo u baahday, ninkii ilaahay siiyow, nicmaa ilaahay kuusoo xerogeliyey, barwaaqa ilaahay kuusoo geliyey, jannada albaabkeeda ilaahay ku dhigay. adigu albaabkaas jannada ha iska xoorin. haddaba waad la socotaan, waad maqasheen xadiidka nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam. xadiidka uu yihi waa duco jibriil duceeyey, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna aamiin yihi. maxaad aamiin u leedahay? jibriil baa duceeyey. raqima anf rajulin kabira cindahu waalidaahu falam yudkilaahu ljanna. waxaa baaba-ay oo hoogay oo khasaaray nin aabihii iyo hooyadii ku agweynaadeen ama midkood, oysan iyagu sabab u noqon jannada inuu galo, jannada gelin waayo. yacni ixsaanka uu u ixsaan falayo iyo wanaagga uu la imanayo ayuu ku janno mudanayaa. hadduu taa garan waayana haddii jannadii heli maayo, halaag buu ku dhacaya. marka waa nicmo weyn qofkii ilaahay laba waalid uu siiyo, nicmo weyn. waxaanad ogaataa baraka oo dhan iyo khayr oo dhan iyo wanaag oo dhanna in ilaahay meeshaa kuu dhex dhigay. qasooyinku saan idiin sheegay iska badan yihiin. xajkii dhaweyd, berigii dhaweyd, xajkii hadda ahaa, baa nin sheekh oo masri on isku wadan ka nimid, qatar ka wadan baa hadlaya. mawduuc wuxuu ku keenay garan maayo, waxayba ahayd maalmihii xajka, lakiin mawduuc cajaa'ib le, yani sheekada buu ka bilaabayba, dad badan buu la hadlaya. wuxuu yihi masr, meesha masr la yidhah baa cimaaro waa taqaanaan, bilding weyn ayaa gubtay, bahal baa ku qarxay, waa gubatay, cimaaradii o dhan waa gubatay, bel waa isla gubtay. waxaa ku nool buu yihi kamida dadka ku nool, reer ka kooban qof dumara oo caruur leh, oo weliba mid ilmo markaas naaska ay nuujinayso oo radiica, iyo hooyadeed oo duq ah ayaa la nool. intaasa ninkii guriga lahaa ma joogo, waa ka maqan yahy. dabkii baa qabsaday, suu u socday, gurigii buu gaaray. gurigii markuu gaaray, dabkii baa qabsaday. waxay noqotay markaa in laga cararo, inay ilmihii la fakato. marka ilmaheeda waa badan yihiin, marba mid bay daftaa, waa la fakataa, marba mid. waxaa isku soo gaaray, isku qabsaday bu markii ugu dambeysay, dabkii iyo qaraxii ugu weynaa, iyo hooyadeed iyo ilmihii ay dhashay, oo markaa radiic ahaa, naaska nuugayay. mid hadday qaada ka kalena qaraxii baa ku dhacay, gaaskii wixii dhan baa isqabsaday. marka waa arrin khatar ahoo, waana mowqif xasaasa wey, khatiira. kana ilmahan waa beerkeedii, kana waa hooyadeed, keebay marka wuxuu yihi sheekhu, ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilmihii iska dayso hooyadeed ay qaado. hooyadeed ma socon karto, hooyadeed bay daf tiri, la booday, markaasay meeshii ku tuurtay, ay kula cararaysay gurigii kale. sidaadii ay yeeshay baa qorigii isla qarxay, qolkii oo dhan, shaqadii oo dhan baa bug, ma laa soo geli kara marka. iyadoo markaa indhaheeda shan ay arkayso ayaa meeshii isla dambast noqotay. ilmihii yaraan waa ku jira, dadkii waa la farxay, waa meeshii waa loo, laakiin iyadii ma farxi karto, dee ilmaheedii oo naaska nuugayay bay kasoo tagtay. laakiin maxay badbaadis hooyade? sheekha wuxuu noogu dhaartay, sheekh muwaafi baa leedahay, wuxuu yihi markii la yimid, qoladii dabdamiska yimaadeen, ayb meeshii wada dambas bay noqotay. wixii bay marka soo inay kala qaadqaadaan oo bal wixii ilmihii fiiriyaan.
sheekha ilaahay magaciisu ku dhaartay wallaahi buu yihi waxaa loo tegay ilmihii yaraa oo sidiisii u ooyaya oo wax tinna ayna ka guban meella waxba ka gaadhin guriga intiisii kale xataa sariirtii uu ku jiifay dambas bay noqotay ilaa ilmahaas yaa badbaadiyey allah rab اlcaalamiin nabi ibraahim qulnaa ya naaru kunii barda wasalaama calaa ibraahim soo mahay qaadirun calaa kuli shay waa dabaan waxba reebaynin ilmaha yar ilahay baa badbaadiyey lakin muxuu ku badbaadiyey sabab bay leedaho waa sababta hooyadeed doorashada ay dooratay inay hooyadeed ay ma aragtay doorbido ilmaha ka doorbido ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku badbaadiyay ilmahaas xadiidkii waad la socotaan waan idin sheegayaa waa xadiid muhima oo baabkan ku saabsan 3 nin oo reer bani israa'iila oo safara ayaa waxay roob baa kusoo da-ay waxay is dhaheen buurtan hoosteeda ka gala roobkan meeshaasay galeen ama halkaasay u baryeenba aawow halkaasay u hoydeen buur hoosteeda god ku yaal bay u hoydeen buurtiibaa dhagax weyn ka soo dhacay oo afkii ka owday waa maqasheen xadiidkan u wada malaynaya kulligiin badin waa ku xidhmay khalaas 3diina halkaasay ku jiraan jawaal iyo telefoonna lama haysto mobile dadka lagula hadlo ama ambalas loogu yeerto ama askar loogu yeerto fa maxay sameeyeen itasaluu billah rabbi bay la hadleen subxaana wa tacaala ninkii bilaabay 3dooda waxay dhaheen horta war 3diinu waxay idin badbaadin kara maanta male ilaa aada ilaahay ku baridaan mid walba u camalkaad is leedahay waa camalkii ugu muhiimsanaa ee rabbigaa kaaga raalli noqday maanta ku bari ka un baa ku badbaadinayay nin baa hadalka bilaabay wuxuu yihi allahuma ilaahayow kaana lii abawaani 2 aabbaan lahaa 2 aabba macnaha aabiyi hooyo waayo abawaan haddii aada maqasho fi luga alcarabiya waa takliib weeyaano waxa weeyaan ab iyo hooyaa loo jeedaa abawaani kaana lii abawaani kabiiraani oo duqahoo da-ho gaboobay labaduba waxaana caadadayda ka mid ahayd buuda dhaqankayga ka mid ahaa marka reer baadiya la iska ahaayo reer baadiye weeyo wuxuu yihi xoolaha markaan soo galbiyo habeenkii oon soo noqdo oo aan caanihii aan liso caanihii maalo iyaga cidna kama hormarin jirin hadda waa inaan caanihii uqaybiya ilmihii iyo xaaskii iyo wax soo ma iyagaan ugu horreysiin jir cid iyaga ka horeyso cabi jirtay caanaha ma jiraan wa kuntu laa akbiqu qablahuma ahlan walaa maala marka maalin baa foofkii ila fogaaday buu yihi xoolaha waan soo daahay way seexdeen iyagoo seexday 2dii waalid baan imid buu yihi caanihii waa usoo lisay qadaxii ama gaawihii aan kusoo lisay baan wadaa marka iyagiina waa hurdaan ilmihii waa soo jeedaan dadkii kale o dhan waan soo jeedaan marka 2 shayba waan diiday buu yihi ko inaan caadadaydii aan gafo oo aabbaha iyo hooyadii cidna ka hormariyo taa ma yeeli kara buu yihi inaan hurdada iyagoo hurdada ka kaciyo oon rakaala canihii cabba iyadana waan diiday buu waa ii suurtageli wey xalkii muxuu noqday inaan habeenkaas oo dhan taagnaado buu yihi qaa'iman habeenkii oo dhan waa taagan yahay ma fadhiya xataa waa dul taagan yahay iyagoo horda gaawihii oo caanaha ku jirayna wuu hayaa gacmuhu ku haya ilmihii waa ooyayaan oo caanihii nasiibay leeyihiin warkooda ma dhagaysanayo wuxuu sugayaa markay soo kacaan goormay soo kaceen goortii fajarki ay ahayd salaadii subax markaasay soo kaceen markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey wuxuu yihi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa u yeelay ufruj cana maa naxnu fiih arrintan aan ku dhex dhacnay dhibaatadan ilaahu maanta naga fayd dhagaxii biamrillaahi tacaala meeshii buu ka dhaqaaqay duleyl buu baneeyey lakin kama bixi karaan 2dii kale la sugaya warkay keenaan 2dii kale la sugaya kii labaad wuxuu yihi isna arrin cajaa-ib buu sheegay gabadh baan jeclaa buu yihi in adeertaya oo aan raggu say u jecel yihiin haweenka sida ugu badan aan u jeclaa jacayl xun oo aan fiicnayn buu ahaayo waxaan doonayay buu yihi inaan maaragtay faaxisho iyo zina ku sameeyo aydana waa diid waxay tiri xaaraan ma abadan lagama yaabo wuxuu yihi mudda markii ay diiday zaman waxaa yimid kulul waa la abaar waa la gaajooday waa la rafaaday ka bacdi iyadoo miskiinaho baahan gaajo awgeed ayay iigu timid waxay tiri buu yihi haddaan ogolahay bal waxaad rabto sameeyo isii wuxuuna sii markaasaan wuxuu yihi siiyey 120 diinaar oo dahaba ayaan siiyey
si ay iigu ogolaato arrintii horay ay iiga diiday. markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonay oo aaman dusheeda aan fadhiyo ayay waxay tiri buu yihi ittaqi illaah, ilaahay ka cabso, walaa tafud alkhaatama ila bixaqihi, khaatamkan ama furahan ha jabinin ila bixaqihi, waa guur yani adoo nikaaxsanin arrintan ha samaynin ayay igu tiri buu yii ittaqi illah. marka tiibaa qalbiga iga taabatay buu yihi. markaasaan meeshii ka kacay, farahan ka qaaday, lacagtiina kama ceshanino waan u daayay. ilaahay ou arrintaa haddaan adiga dartaa u sameeyey fafruj cana maa naxnu fiih. dhagaxii marka ilaahay arrin u aqbalay bay ahayd, horay u ogaa subxaana. dhagaxii meeshii waa ka durkay, laakiin kama bixi karaan. kii saddexaad baa la sugaya. kii saddexaadna arrin cajaa'ib loo sheego kale. wuxuu yihi ilaahayow waxaan soo kiraystay dad ujaro oo ii shaqeeya, shaqaale. markay shaqadii ii dhameeyeenna nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey. nin baa iska diiday waxoogay waxiisa lugayo yii war naga tag, waxaan maxayiin isaga tag. waa xanaaqi, waa tagay. xoolihiisii xoogaygiisii u lahaa, ajrigiisii, shaqaayadiisii, mushaharkiisii maalintaa ayaan u kobciyey buu yihi, oon u midho maalay, cidna kuma khasbin. wuxuu yihi ajirkiisii intii yarayd, lacagtii yare uu lahaa baa ilaahay u barakeeyo geel fara badan iyo lo fara badan iyo ari fara badan iyo addoomaa la iibsan jiray oo fara badan, intaasoo xolo ah ayuu noqday. beri danbu u yimid, wuxuu yihi ya cabdallah addi ilaya ajri, hadda isii waxoogayga aan berigii ayaan saluugeyn ka cararay. markaasaan ku iri bu ma aragtaa geelaas iyo lo-da iyo ariga iyo raqiiqa addoommada iyo waxaasoo dhan adaa iskale qaado. markaasuu yiri ya cabdallah laa tastahzi bi, haygu jeejeesin, anigu jeejeesan miskiinaan ahay, xoogaygeeni iyo mushaarkaygiisii, xoogaygi maalintii aan ku shaqaysaysay waxaan o dhan mali may kugu jeejeesi maayo. intaa aada arkaysoo dhan lacagtii yareedeed ka tagtay baa kuu dhashay, adaa iskale qaadaan iri bui. markaasuu yihi fastaaqahu, waa wada kaxaystay oo falam yatruk shayan, shayna kama tegin. ya mid isna inkaar qabo midha ah kaas ma oran xataa neefka war awrkan ama neefkan arigaa xataa bal intaa dadaashi iyo wixii aada qabatay u qaada bedelkeed ma oran, kulli waa wada qaatu yidhi. falam yatruk shayan, shayna muuna ka tegin, anoo arkayo wada qaatay bu. ee ilaahayow haddaan aniga arrinta dartaa u sameeyey, adiga dartaa u sameeyey muxuu ka wadaa? yani maalintaa hadduu xoogeygii lacagta uu lahaa keliya siiyo, ma cid baa u eedsan lahay? miyuu ka warhayaa kani? ma og yahay kan waxaan oo xoolo ah in lacagtiisii ay dhashay? ma oga. iska tag hadduu yidhaaho xoogeygiisi uu siiyo, cidna uma raacateen. laakiin adiga dartaa baan arrintaa u yeelay bu. haddaan saa nahay ilahu naga fay. dhagaxii fag meesha waa ka baxay, saddexdii ninna waa iska tagay. hadda muxaadarada barnaamijka khuseeya kee waaye? kii hore waay. so mid walba waa mid cajaa'ib leh oo yaab la waay. laakiin kii hore labadiisa waalid markaad si u fiirsato, ninkaasi wuxuu la yimid xaqii ugu weynaa buu la yimid lilwaalideyn. oo waa maxa? dee waajib kuma aha, qasab kuma aha, sharcigu kuma qasbin. waa ixsaankii lana faray weeye. ixsaanku waa fawqa maa huwa matluubun minka, farad ku ama ah, waa wax oo isagu dheeraadu samaynayo. inuu ilmahan gaajaysan ee cabaadaya ee qaylinaya inuu hormariyo caanahaasi, maadaama aabbihi hooye ay seexdeen, wax dhibaataha kama soo gaadheen. walaakin xaqooda uu dhowrayo iyo arrintaa uu waajibka isaga dhigay aabbihii iyo hooyadii cid ka horeysa inuuna caanaha saynin ayuu diiday inuu jabiyo. midda kale muu iska seexdo oo markuu soo kaco berri soo kacanay siihan, habeenkii o dhan buu taagnaa. taasaa marka ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqday, sababna u noqotay tafriijkii ilaahay uu ka fog. marka waxaa lanaga doonaya inaan ku dadaalo. alwaalideyn xaquhumaa kabiir, inaan iska ilaalino xaqooda had iyo goor aan ku dadaalo. labada waalid shayga ay jecel yihiin inaan anagu uga hormaro had iyo goor. waad la socotaan xadiidkii nabiga calayhi salaam uu ku tilmaamay nin taabiciya. waa nin taabiciya, nin saxaabiya ma ah. saad la socotaan ummaddan waxaa ugu khayr badan asxaabta nebiga, ka bacdi jiilka ku xigay, aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum. yani taabiciinta oo dhan haddii laisu geeyo kulligood dad fiican baa ku jiray. hal nin oo saxaabo ah agtiisa ma iman karaan. saxaabada fadli ilaahay aa siiyey, fadli ilaahay oo gaaray leeyihiin maadaama ay nebigii la kulmeen calayhi salaatu wasalaam.
walakin maca dalika nebigu nin taabiciya oon saxaabi ahayn ayuu asxaabtii weliba raggoodii ugu waaweynaa weliba sayidina cumar bn khaaab ahaa wuu u dardaarmo weyne ninkaa haddaad la kulanto duca ka dalab inuu kuu duceeyo oo dambi dhaaf ilahay kuu weydiiyo. ninkaa waxaa la yidhaha buu yihi uways alqarni, waa reer yaman, reerkaas oo qaran abuu ka sii yahay, halkaasuu joogaa, hooyuu leeyahay oo baari u yahay, lahu umun biha huwa biha barun, baari buu u yahay, hooyadiis buu baari u yahay. ninka haddaad aragto duca ka dalab oo ii dambi dhaaf, ilahay ii dambi dhaaf ii weydii dheh, dambi dhaaf ilahay iiga bari isku dheh buu yihi haddaad aragto. sayidina cumar oo weliba amiiru lmuminiin markaa ah ayaa markay yimaadeen kooxihii amdaadii jeyshka muslimiinta, ilan waa laga dalbi jiray meel kasta inay ka yimaadaan, ayuu weydiin jiray. waa nin uways la yidhaha yaa yaqaan, ilaa uu helay nin yaqaana oo yihi anaa ninkaas kada. markii dambe waaba yimid uways baaba ways arkeenba, ha adigu ma hebel baa taha, ha reer hebel ma taha, oo hebel qabiilkaa reerkaa ma kasii taha, uways ma lagu yidhaha, hooye ma leedaha, baras ma lahayd oo ilaahay ma kaa caafiyo in yaroo dirham oo kale ama kaaga hadhay, ha haddaba waa ninkii nebiga uu nagula dardaarmay baa tahay, warniyow dambi dhaaf ilahay iyo weydii, oo waxaa tiraa ilaahay oo cumar u dambi dhaaf. waayahay allahuma kfir licumar bn khaaab. haddaba wuxu xageed u socotaa? dhinaca kuufaan u socdaa, aan kuugu qoro halkaas si lagu ogaado maqaamkaaga. maya ha yeelin buu yihi, akunu fii qabraai innaas, dadka caamata naasi fuqaradoodaan ku jiraya, waxba yaana gaar ka noqonin, iska kayda. sidii buu uga tegay meeshii buu tagay. sanadkii dambe markii lasoo xajiyey ayuu wareystay dadkii meeshiisa ka yimid, war ninkaa ayaa arkay, annagaa aragnay, wuxuu ahaa nin waxaan aragnay bay dheheen, ninkaas aweys wey, oo xaaladiisay ahayd, wa kaana radha almataac, yani nin miskiin ahoo tabar daran oo taag daran bu oo waxba aan haysanin buu ahaa. markaasuu u sheegay sayidina cumar, war ninkaa iska ilaaliya, ninkaa waa ninka nebigu uu nagula dardaarmay, haddaan aragno inaan nidhaahno ilaahay dambi dhaaf noo weydii, ee ninkii arkow sidaa yeel. kuwii baa noqday, war balka hale amiir lmuminiin baaba yiri ninkan nin khataro weeye, bal ilaahay noo bari. markii dadku ay ogaadeen oo isaga tegay, ma doonaya meel lagu ogyahay inuu joogo. nin saalix buu ahaa, waxaa caadadiisa kamid ahayd baa layidhi salaada subax markuu tukado meeshiisa kama kici jirin ilaa duhurka, haddana duhurka markuu tukado meeshiisa kama kici jirin ilaa casarka, hadda casarka hadduu tukado ilaa maqribku haddana fadhihi jiray, maqribka hadduu tukado ilaa cishahu fadhihi jiray, cishaha markuu tukado meeshaa unbuu fadhiya, hadda ilahay xusaya, markaasuu kacaya gurigiisa gaaraya, isla markii haddana meeshuu kusoo noqonaya. saasay caadadiisa ahayd baa leeyi. nin saalixu ahaa oo ilaahay baari u ah, hooyadiisna baari u ah, laakiin meesha la tilmaamay maxay ahayd? huwa biha baarun. ninkii doonaya marka inuu liibaano, aabihii hooyadii baari ha noqdo. wiilashan yaryarka oo dhalinyarada khaasatan wadamadan ku koray, hadii hadda isku afba ma nihin, hadday afkayga garanayaan, ya isku af ma nihin, oo hadda inaan ingiriiska baran doonaan umalaynaya, si kale male. ya haddii aan is afgaranayno waxaad yeelaysaan, dadkan oo aada u timaadeen oo gaalada ah, dadkan markii horeba aniga idiin sheegay xaqii ilaahay mayna baran, rabbigoodna umayna mahadnaqin, sidaas awgeed aabbiyo hooye uma mahadnaqayaan. birulwaalideyn agtooda ma yaallo birulwaalideyn. ixsaan caama waa iska leeyihiin oo iyaga dhexdooda ay isu ixsaanaan falaan. beryo horean ka fiirsaday oon ii anigu waxaan waayey baan idhi, nin weyn oo da-ah oo nin dhalinyaro ah oo uu dhalay gacanta uu hayo wadada uu wado waa waayey. kadalik islaan gabowday, yani gabadh yar oo dhalinyaro ah oo islaan gabowday gacanta hayso oo wada oo gaaladan ana waa la waayey. anu ma arkin, ma aqaana aragteeni kale. marka mid baa igu yihi marmar baad arkaysaa, dadkan aada u kala yaqaan, wuxuu i marmar baad arkaysaa, markaad aragtana ha u qaadanin inuu ilmihiisa maaha, meesha dadka waaweyn buu ka shaqeeyaa bu. waxaa la amray buu yihi inuu soo warwareejiyo, laakiin ma dhici karta buu yihi nin dhalinyaro oo aabihii gacanta hayo oo da-a ma arkaysid buu yihi, ama hooyadii oo da-a gacanta haya ma arkaysid buu yihi. uma suubadaan, umana qalmaan. yaar dhalinyaro taxi maraykan beri aan jooga, maraykan taxile wey, soomaali ah. wuxuu yihi islaam baa taxiga soo fuushay, da-ahoo gabowday, dhakhtar igee bay tiri buu meel isbitaal ah aada u fog, waan geeyey. markay ka degtay waxay u tiri buu yihi, bahalkan xisaabta cadaadka tiriya ha joojinin, isug ilaa aan kaaga soo noqdo, anaa iska bixinaya, wax badan iga maqnayd buu yihi.
ninkeeda oo da-ah oo gaboobo dhakhtar ku jiray soo booqanaysay. markay soo noqotay haddana waa soo kaxay gurigeedan kusoo celiyay. lacag badan oo 100 iyo ziyaado ayaa kusoo baxday. markaasay lacag kaloo fara badanna igu dartay. markaasaan inigu yihi maxaa kugu kalifay arrintan, ma ii sheegi kartaa? yani taxiga waa iskaga sii dayn karta, taxi kalaad qaadan kartay, maxaad lacagta isugu badis? markaasay iyadoo aada u tiiraanyeysan bay sheeke ii sheegtay. waxay tihi anigu horta ninkaan soo booqanaya ninkaygu ahaa o da- meeshuu ku jiraa dhakhtarka, wiil iyo gabadh baan leenahay. wiilka iyo gabadhaas sanadkii waxay noo iman jireen marka oo christmaska meel ayay noo iman jireen. tuulooyin agteena ay degan yihiin, ma aragno, markaasay noo yimaadaan. marka maalintii dhaweyd oo hadda ugu dambeysay, markii ugu dambeysay way ila soo hadleen, mid walba gaar buu ila soo hadlay. hooy waa imanaynaa laakiin lacagta adaa bixinay. waa ku imanaynaa, imaatinkaas waa kaa iibsanayna, waay lacagta kusoo raacayno tareenka ma waxaan adaa bixinaya. raalli baan ka habeet, anaaba abaal ku qaba, libi ku qaba inay ii yimaadaan oo wax kasta bixiyo. maca dalika imaysan imanin. markaasaan go-aan ku gaaray inaan qalbigayga ka saara inay jiraanba kuwaas. sidaas awgeed dhalinyaro kasta oon arko hadda waxaan jeclahay inaan ilmo ka dhigto, on isaga ilmo ka dhigto oo waxaan haya aan siiyo. tanna qaado ood lahayd tanna ku darso, iska tag. saasay ugu tiri. marka waxaan ka wadaa ha ku dayanina dadkan, maadaama xaqii ugu weynaa oo xaqullah haysan haynin, xaqulwaalideynna ma hayn karaan, umaba samaysnaba. saas awgeed waalid waxaan aada maqlaysaan ama iskoolka laidin sheegayo in waalidka lala doodo ama maaragtay lala hadlo ama hayelina idinka. daa'iman ixtiraam, labada waalid ixtiraam baa laidinka rabaa, inaadan kor u fiirin. hadiyo goor madaxa inaad ka dhunkataan, gacanta ka dhunkataan, subaxii markaad sii baxaysaan iyo markaad shaqa kasoo noqotaan iskuolka. ko waxaad ka bilowdaa adoon meel tagin, meel kala gey, aabaha iyo hooyada madaxa iyo gacanta ka dhunko. waa ku liibaanaysa, ilahay baa kugu jeclaanaya subxaana wa tacaala. kelimad xunna weliga ha ku odhan, kelimad xun weliga ha ku odhan. ay shay ku dhahana waayahay dhe. waa arrin runtii marka lagu hadlayo afka ka sahla, laakiin dhaqankeedu iska dhib badan yahay. ilaa man yasara allahu lahu. khulaasat lkalaam, warkii haddaan soo koobo, ilaahay jala jalaaluhu waxaa ugu weyn in loogu dhawaado waa in isaga la caabudo subxaanahu waxdahu laa shariika lahu, isaga loo mahadnaqo. waxaa ku xiga xaqulwaalideyn baa ku xiga. su-aasha ugu dambeysa marka aan kusoo khatimayno, nin baa su-aal weydiin kara o odhan kara, anigu hadda yani aabiya hooye waa iga tageen, waa dhinteen, ma joogaan. marka maxaan samayn karaa? aabbahay hooyaday oo aan jeclahay inaan u ixsaan falo, wax ixsaan ah, wax baarinimo ah ma igu hadhay mar hadday dhintaan. su-aasha iyada waa laga jawaabay, nabigaana ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam. wa min xusni lxad, su-aashaasna horay u dhacdo oo nabigaa la weydiiyey. nin baa weydiiyey, aabbaha iyo hooyaday waa dhinteen, wax baarinimo hadhay oo aan u baari fali karaa, oon ixsaan fali karaa ma jiraan? haabuu yii, haabuu yii. horta hadday nool yihiin dee waa ad u ixsaan falaysa. booska la gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa in nin nabiga u yimid calayh isalaatu wasalaam uu yihi, waxaan rabaa inaan jihaadka ku raaco. jihaadka inaan ku raaco, jihaadka shayga ugu weyn. hooye ma leedahay? hooyada ma nooshahay? waa laba waalid ma leedahay? ha, fa fiihima fajaahid, orod iyaga maaragta kusoo jihaad. marka khaslada ugu dambeyso ah, labadaada waalid haddii ay dhinteen oo adduunka aysan joogin, ma loo ixsaan fali karaa? ha, waa loo ixsaan fali karaa, waa loo baari fali karaa. nabigu uu noo sheegay alayh salatu slam. biriga aada u samaynaysa aabbaha iyo hooyada oo tegay, kow waa in aada u ducaysaa. birinimaday ka mid tahay. walidaalika dad wanaagsan qaarkood dhaqankooda waxaa ka mid ahaa, wuxuu yihi salaad kastoon ka baxo, rabbi kfir lii waliwaalidaya kama tago. labadaada waalid makfiro ilaahay u weydii. kow. arrinta labaad, inaad u ducayso biraxma, istikfaar, dambi dhaaf, raxmad, ilah u naxariisa aad tagaad had iyo goor. arrinta saddexaad, inaad sadaqa u baxsato. sadaqa bixi, u niyo iyaga, way gaadhaysaa, ilahay baa gaarsiinaya subxaanahu wa tacaala. sadaqadaas nooc kastay noqon kartaa. ma aha shardi in oo maaragtay aad xoolo qasho oo dabadeed xoolaha marka iska dhaqano waxaa iska jiray berigii dambe
ay soomaalida meel ka keeneen ma aqaana xus iyo wax la yidhaha abahay baan xusaya hooyadii baan xusaya oo kada ayaa iska jiray. asalkeedu waa saxiix oo inaad intaad cunto samayso xoolaha intaad gowracdo masaakiinta ugu yeedho ay dhargaan oo magaranaysaa ay duceeyaan oo aabaha ama hooyada aad tawaabka u niyeysato weeye aslulmas'ala waana sax wax ay ku jirtaana male. laakiin in dhaqan lala eegto oo meeshii dad masaakiina la siin lahaa dad iska aragtay dheragsan meelaha looga yeedho oo xaflad oo kale laga dhigo oo taas ayaan sharcigu uusan ogolayn meelna aan ku qotomin. laakiin inaad adiga aadan weliba xataa waqti u samayn sanad kasta markuu dhintay maxaa qasab ka dhigay ay waqti oo aada waxheshid sadaqa la bax. sadaqadana daa'iman tan daa'imkae mutawaasilka fiican. sadaqa jaariya, masjid la dhisayo, ceel la qodayo, biyaheeda la cabayo, xoolo nool aad bay u fiican yihiin haddaad intaad iibiso dad masaakiina oo baadiyihii joogoo kale aada maaragtay ku sadaqaysato inta ay nool yihiin ama wax daaqayaan ama wax sii dhalaan ajir aabaha iyo hooyada u socdo weya fii qabrihima oo nuur u dareerayo waa wax weyn weyaan baa lagu helaya. ko waxaa kale oo ka mid ah biri lwaalideyn bacda wafaatihima markay dhintaan in hadday dardaaran ka tageen dardaarankoodii aada meel mariso. dardaaran bay ka tageen, dardaarankii ay ka tageen fuli. arrinta shanaad waxaa weeye saaxiib bay lahaayeen. waxaan soo iloobay silatu araxim. silatu raxim, raximkii ay isku kaa xiriiriyeen iyagu xag hooye ama xag aabbo inaad xiriiriso. biri lwaalideynta bacda wafaatihima bay dhimashadooda kadib bay ka mid tahay in raximka aada u ixsaan fasho oo silaturaxim de waad garanaysaan waa wax aan ma garanaysaa yani wax koobi kara ajirkiisa iyo khayrkiisa usan jirin oo xataa nebigu yiri ninkii doonaya in cumrigiisa loo kordhiyo loo barakeeyo risqigiisana ilaahay waasic uga dhigo raximkiisa hasile ha xidhiiriyo. marka raximku wax weyn weeyaan. maxaad u xidhiirinaysaa labadaadaa waalid awgood leanna raxim kale maydaan isu timaadeen iyagaa isu kinkaane. arrinta ugu dambaysa waa sadiiqoodii saaxiibka la ahaa. aabbahabaa nin saaxiib ah lahaa ama hooyadaaba qof saaxiibada lahayd oo had iyo goor isla socon jireen oo isjeclaayeen. iyagana inaad u baarinimo fasho meeshii aada aabbaha iyo hooyada u joogi lahayd iyagana u joogtid oo aada xusuusatid xataa haddii ay kaa fog yihiin ama wadankii ay jiraan had iyo goor aad ku darsato dadka aada ma garanaysaa marmarka qaarkii wax u dirayso ama aada ka farxinayso inay kow ka galaan leanna aabbaha iyo hooyadaabay saaxiibkooda ahaayeen falisuxbatihimaa baad ilaalinaysaa birigooda ayay ka mid yihiin. wa akhiiran nadcu llaha tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa waalidiinteenna inuu dambi dhaafo. galabtaa insha allahu galbaha ilaahay ka mida wadamadeennina habeen ah ee barakaysan min cindihi in ilaahay subxaana watacaala fadhigaan isugu nimid awgeed ilaahay subxaana watacaala aabbayaashiini hooyooyinkeen naar ka koriyo oo jannada u geeyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inteena meesha joogta iyo intana dhegaysanaysa iyo inta hadalkeena la socota kii aabihii iyo hooyadii ay nool yihiin ilaahay inuu baarinimada waafajiyo. aabihii iyo hooyadii kii ay tageenna in ilaahay subxaanahu watacaala uu naxariisto khayr uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. caruurtana ilaahay baari ha nooga dhigo, saalixiin allah nooga dhigo, ilaahay ha noo hanuuniyo. in allaha calaa kuli shayin qadiir. allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamedi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.